oo kale ama meelahaas dagaalo iyo furmo uga waxaysmato nimanka harti ee majarteena ay ku qasab ku noqoto in ciidankoodii dib ay u soo celiyaan waxyaabaha kale la rabo oo ay tahay in dadku ay fahmaan waxay tahay SSC haddii ay dhismato waxaa meesha ka baxayo waxa la dhaho urur Soomaaliysi waxaa meesha ka baxayo dawladdii in 30 sano ugu dambeysay sheeganaysa inay ictiraaf hesho in aysan marnababo ictiraaf heli doonin intaas. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu walaalaha Soomaalida meel walba joogtaan waxaan idin leenahay waqtiga haydin wacnaado please videoga no like channelkana ku soo biir subscribe sar caaway waxaan rabnaa inaan ka hadalno laba qodob oo aan doonayno inaan isla falanqeyno isla markaana si qoto dheer aan u eegno. waxaan ka warqabnaa in madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisa Xamso ay qorsheynayaan qaab walbo ay tahay si walbo ay tahay inay guddi diraan ama wadada ayaga ka socdo taas oo ay doonayaan sida iyaga ay sheegteen in ay dhexdhexaadin ku sameeyaan SSC iyo Somaliland. arrinkaas waan ka hadli doonaa waxaana isku dayi doonaa inaan analyze garayno sababaha Xasan Sheekh Maxamuud uu u doonayo in arrintan ay u dhacdo. waxaan kala rabnaa inaan ka hadalno saad ogtihiin maalmihii la soo dhaafay waxaa dhacay shir golaha wasiirada waxaa laga hadlayay deyn cafinta dalka Soomaaliya qaabka ay u hagaagi karayso iyo waxyaabo looga baahan yahay wasaaradda maaliyadda iyo waxyaabihii la hor dhigay taasna iyadana waan ka hadli doonaa inay suuragal tahay iyo in kale. waxaan ku bilaabaynaa waxaa jiro niman xildhibaano ah oo ka soo jeedo gobolada SSC waxaan jeclahay inay yihiin 3 xildhibaan oo aan doonayn magacooda in aan idin kala wadaago. nimankaas waxay u ololeynayaan waa niman dhaqaale la siiyay waxaana qorshahan ka dambeeyo oo maskaxda ugu weyn ee ka soo baxday ay tahay Ismaaciil Cumar Geelle oo hormuud u ah waxa ka socdo SSC. Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu doonayaa wax kasta oo ay dhacdo in SSC marnababo aysan ka go'in Somaliland halkaasna SSC harjidkeeda lagu waxeeyo. marka maxay tahay waxa uu sameyn karo? waxaan ognahay Xasan Sheekh wuxuu si toos ah uga amar qaataa Ismaaciil Cumar Geelle wax kasta Ismaaciil Cumar Geelle oo dhahana waa uu sameynaya. waxaan rabaa marka inaan isla fiirino sababta ka dambeyso Xasan Sheekh Maxamuud in uu doonayo inuu ku curyaamiyo ama uu ku joojiyo halganka SSC ay ka wadaan goboladooda oo ay doonayaan inay ku xoreystaan goboladooda ee duulaanka lagu soo qaaday. waxaan rabaa inaan idin la wadaago dhowr qodob oo uu doonayo. waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo 2013 markii dhalinyaradii qawaariijta laga saaray magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee Jubbaland Xasan Sheekh madaxweyne ayuu xilligaas ka ahaa dalka Soomaaliya waxa uu diray uu soo qalabeeyay oo ciidan u soo dhibay Barre Aadan Shire Barre Hiiraare oo ahaa nin Mareexaan oo Daarood Ismaaciil wuxuuna u soo diray oo waliba Kismaayo uu ka galay dhinaca badda wuxuu isku dhuftay Barre Hiiraare iyo Axmed Madoobe waxaa meeshaas ka dhacay dagaal. qorshaha ugu weyn oo Xasan Sheekh ka lahaa waxay tahay in Jubbaland aysan dhismin hase ahaatee wax kasta oo dhacdo Jubbaland waa ay dhismatay inkastoo khilaafaad badan uu jiro laakiin waa maamul ka mid ah maamulada Soomaaliya state la aqoonsan yahay wax walba cid isku haysatana ay tahay laakiin uu yahay maamul. qodobka kale ee uusan Xasan Sheekh u doonaynin Xasan Sheekh iyo waliba deeq yani siyaasadda Soomaaliya waxa ka jiro lama doonayaan Xasan Sheekh iyo ninka la yiraahdo Ismaaciil Cumar Geelle inuu soo kordho maamul saddexaad oo nimanka la yiraahdo Daarood magacaas waa magacii dhaliyay in ay midoobaan nimankan ku midoobay waxa la dhaho urur Soomaaliya ognahay inuusan qabiil lahayn laakiin uu yahay isbahaysi siyaasadeed. waxaan ognahay oo kale in Soomaaliya qofkii markii ciddii hesha 3 maamul goboleed oo sax ah oo xaqiiqda ay tahay waxa halkaas ka soo baxayso xildhibaano fara badan. SSC haddii hadda ay dhismato waxa halkaas uga soo baxayo Daarood Ismaaciil xildhibaano badan
taasna waxay keenaysaa caqabad weyn ku noqonaysaa in beesha aan walaalanahay hawiyo ay ku adkaato in madaxweyne soomaaliya ay ka noqdaan maadaama weli soomaaliya ay ku jirto waxa la dhaho awood qaybsi. saddex, qodobka kale ee muhiimka ah oo asagana loo baahan yahay in la rabo meeshaan in lagu joojiyo waxay tahay oo la isticmaalayo in la iska hor keeno hartiga ku dagaalamayo amaba maxaa la dhihi jiray ka dagaalamayo SSC. waxaa berihii ugu dambeeyey social media la geliyay ood ka warqabtaan in xasan sheekh uu si cad oo weerar ah u weeraray dowladda puntland oo uu sheegay in 24 beri gudaheeda ay ku burburayso. taas waxay caddaynaysaa in maamulka puntland uu doonayo inuu ku furo qalqal siyaasadeed, taas oo hadhow keeni karayso in gaalkacyo oo kale ama meelahaas dagaalo iyo furmo uga waxaysmato nimanka harti ee majarteena ay qasab ku noqoto in ciidankooda dib ay usoo celiyaan oo ayaga ay maamulkooda badbaadsadaan. waana qorshooyinka uu ku doonayo si kastaba ahaatee in SSC uu hor istaago. waxyaabaha kale la rabo oo ay tahay in dadku ay fahmaan waxay tahay SSC haddii ay dhismato waxaa meesha ka baxayo waxa la dhaho urur Soomaaliysi, waxaa meesha ka baxayo dowladdii in 30 sano ugu dambeysay sheeganaysa inay ictiraaf hesho in aysan marnababo ictiraaf heli doonin. intaas ayaan ka leeyahay. waxaan rabnaa marka inaan isla fiirino wixii la sheegay maalmihii ugu dambeeyay waan ka warqabnay kulankii ka dhacay magaalada muqdisho oo wasiirada ay sheegeen. waxaan ognahay Xamse Barre waa ra'iisul wasaaraha ummadda Soomaaliya, laakiin waxaa xaqiiqa in ra'iisul wasaaraha uusan xog dheeraad ka haysanin wasaaradda maaliyadda qaabkay u socoto dhaqaalaha sida loo maareyn gareeyo. wuxuu ka helaa informationka qofka saddexaad camal buu noqdaa informationka helo. marka nimankan ay la shireen iyo barnaamijka qaabka ayaga lagu xujiyey ayaa waxaa ka mid ah in qodobadan ay wasaaradda maaliyadda soo dhammaystirto haddii ayba suuragal tahay in ayaga deynta ama barnaamijkan la galo. kow waa inay sameeyaan wax la dhaho hindiso sharci ah oo hanti dhowrka wasaaradda maaliyadda. waa inay la imaadaan sharci cad oo ilaahay kuma darnaadee hanti dhowrka maaliyadda ah. Soomaaliya waa inay la imaadaan. labo, waxaa kaloo looga baahan yahay haddii good governance laga rabo in dakhliga kor loo qaado. waxaan ka warqabnaa xilligii dowladdii farmaajo dakhliga aad ayuu u korkacayay. hadda asla hadlaynana waxaa jiro askar fara badan oo ciidanka ka mid ah oo ilaa hadda sheeganayso mishaar la-aan ama mishaarkoodii aan la siin. marka dakhliga in kor loo qaado waxay ka qayb qaadanaysaa in deynta la cafiyo. saddex, in musuqmaasuqa la tirtiro amaba la yareeyo. waxaana xaqiiqa dadka dhan ay wada ogyihiin xasan sheekh maxamuud inuu yahay aabihii musuqmaasuqa. taas marka waxay meesha ka saaraysaa in ay adag tahay in Soomaaliya laga cafiyo deynta. afar, hagaajinta iyo maareynta maalka ummadda Soomaaliyeed. waxaa xaqiiqa dowladda xasan sheekh maxamuud inaysan suuragelin karaynin in ay hagaajiso amaba ay maareyso maalka ummadda Soomaaliyeed, sababtoo ah dowladdii waxay noqotay dowlad family ah, dowlad gabar iyo ina adeer markii laga tago family ah. marka waxaa meeshaas ka cad in lagu kartifali kara ama maxaa lagu tagrifalayo hantida iyo maareynta ummadda Soomaaliyeed. waxaan ka hadlayo waa barnaamij xaqiiqa iyo baritaano sax ah imaa waxaan anigu jeclahay. qodobka shanaad waxay tahay qandaraasadii la soo qaatay waa in dalka laga hirgeliyo. caalamka waxaa loo sheegaa in la dhisayo dhismo, in wadooyin la dhisayo, in isbitaallo la dhisayo, in gargaar fara badan la siinayo, laakiin sida muuqata waxay tahay ilaa hadda ma aragno wax la sameeyey. qandaraasadaas waa muhiim dalka in laga hirgeliyo. qodobka lixaad, shaqa qoris. waxaan ka warqabnaa in dowladda uu madaxweynaha ka yahay xasan sheekh maxamuud sanadihii ugu hadda joogto 10 bil inay joogtaan jeclahay. waxaa la sameynayay qof baa la ceerinayay, qof baa la keenayay. qofka aqoonta leh ee khibradda leh ee aad iska ceyrinaysid oo aad keenaysid qof aan aqoon lahayn waxay sababaysaa in administrationka uu fail garoobo, waxbana aan la socodsiin karin. marka muhiimka waxay tahay in shaqaalo khibrad leh la qoro oo dowladda ay leedahay. shaqaalahaas marka qodobka ugu dambeeya oo aan aad u jeclaada waxay tahay barnaamijka laga soo saaray in wasiirada, agaasimayaasha, saraakiisha, xogayaasha joogtada ah wax in ay yacni hantida hadda ay haystaan
la qiimeeyo lacagtoodii dhaqaalahoodana la ogaado si hadhow markii ay ka tegayaan meeshaas haddii dhacday in la faaya gareeyo in ilaah kuma darnaadee haddii ay dhaqaalo badan qaateen laga soo celiyo waa qodobka ugu muhiimsanaa waan isiri alla ilaahay dowladda haddii xasan sheekh qabato waa good way intaas ayaan barnaamij kusoo gabagabeynayaa intaan qodob noocan oo kala falanqeyn noocan oo kala ku kulmayno waa araxoo idin leh amaana allah waqtiga idin wanaado